waxaa jira waxyaabo dabiici ah la heli karo oo waxtarkooda la arkay. Waxyaabahaas ayaa ku siinaya hurdo wanaagsan kana ilaalinaya in maskaxdu ku kacdo iyo hurdo la'aan. Walxahan ayaa waxaa dhex qooshan amino acidyo siyaadinaya soo saarka maadada melatonin ee hurdo wanaagga. Malabka iyo caanaha la isku daray sida lagu yaqiin daawooyinka dabiiciga ah ee ku jira malabka iyo caanaha iyo in hurdo wacan ay ku siiyaan. Malabka ayaa ah daawo dhaqameedka qaniga ku ah antioxidant, antibacteria, antifungal, anti-inflammatory. Caanaha oo ayaguna qani ku ah vitamin A, B, D, calcium iyo borotiinno. Si kastaba, markii aad isku dartid caanaha iyo malabka oo aad cabto, waxaad helaysaa natiijo weyn iyo faa'iidooyin badan. Ka hortagga hurdo yarida. Malabka iyo caanaha la isku daray oo aad cabto waxay daawo dabiici ah u yihiin ka hortagga hurdo la'aanta. Waxaa ku jira sonkor dabiici ah iyo amino acidyo dejinaya unugyada maskaxda, xoojinayana habqabeedka isgaarsiinta maskaxda neurotransmitters. Liddi ku ahyaal bacteria. Cilmi baaris lagu sameeyay malabka iyo caanaha isku jira ayaa lagu xaqiijiyay inay carqaladeeyaan tarmidda bakteeriyada noocyo badan, waxayna sidoo kale ka hortagaan infekshannada kala duwan ee saameeya saableyda, hawo-mareenada iyo urkujirta. Liddi ku ahyaal muuqaalka da'da. Malabka iyo caanaha la isku darayo waxaa loo isticmaali jiray yareynta muuqaalka da'da weyn ee wejiga. Qarniyadii hore, habkan ayaa la samayn jiray iyadoo la cabayo malabka iyo caanaha isku jira, kadibna da'daad u ekaanayso qof yar. Xoojinta difaaca jirka. Malabka iyo caanaha la isku daray waxay xoojiyaan habka difaaca jirka, ayagoo xoojinaya guntiyada soo saara ficilada ka dhanka ah fayrasyada, bakteeriyada iyo infekshannada.